صابرين عارف عبد الله، وقدر مهرها 10,000 يورو بوكالة وليها إيايا. ولي عارف عبد الله هيا أنا وكيل شيء خليل عبد الله عبد الرحمن، قبلت نكاحها وتزويجها. حضراني سألوا قبلت نكاحها وتزويجها. قبلت نكاحها وتزويجها. خلاص. وعن كو قولي وعن كو نكاحي صابرين عارف عبد الله، صابرين ووليجيدا عارف عبد الله، وأنيجا وخليل عبد الله عبد الرحمن يقولي شيء ولاية إيدي مهركي بيا 10 كن أو لعقتها يورا، مهركا 10 كن يورا. صابرين عارف عبد الله. كان هو مداليها دلينتا عمر محمد عمر كريش يمرودي صابرين عارف عبد الله يوم هركوده كدعay wadanka Austria. waxaan leenahay hambalyo walaal, noqda adiga marwadaada kuwa isku waara oo walaad khayr qaba kala hela. maalin farxadeed oo walaalka qaadanaya isla markaana u ah maalinta ugu farxadda badan dunida oo adigana dhinacaada kala qaadatid, waxay ka dhigan tahay inaad qofkaasi wax kasta oo wanaag ah aad u sameyn kartid aad u sameysay. balse waxaan leenahay hambalyo boqorka madaaliyaha dhalinta adiga marwadaada Saabiriin Caarif Cabdullaahi, noqda kuwa walaad khayr qaba kala hela ayaan leenahay. idinkana waxaan rajeynayaa daawanay muuqaalkan inuu soo hambalin doontaan. sidoo kale muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaabo fara badan oo kaaga qarsoon Cumar iyo Saabiriin xilliga isbarteen, waxyaabaha isla soo mareen iyo ugu dambeyntii in ay ismeersadeen February 2021. haddaba daawadayaal muuqaalkan hadda la geliyay wax badan ayuu naga saacidayaa oo ah inuu YouTube ku baahiyo isla markaan dad fara badan uu gaaro. lagtaan daa saartid adiga agtaada waxa kaama aha, haddii aad ceshisidna wax ay ku faa'iideynaysa ma laha, balse hadda leeg dhac ku siisid wuxuu naga saacidayaa inuu muuqaalkan waxyaalo fara badan uu nagu ku soo kordhiyo isla markaan uu noqdo muuqaal baaha. haddii aad leeg geliysid wadiidkaas ayaan ka leenahay, waxaan filayaa inaad nagu taageeri doontid oo leeg dhac ku siin doontid. waan arkaa inaad leeg saartay mahadsanid. madaaliyaha dhalinta Cumar Maxamed Cumar Kirish oo ah shakhsi saameyn weyn ku leh baraha bulshada isla markaana in ka badan 500,000 qof ay ku xiran yihiin bartiisa YouTube-ka ayaa waxa ay meherkooda asaga iyo marwadiisa Saabiriin Caarif Cabdullaahi oo ka dhacay wadanka Austria. waxaana meherkoodu noqday mid saameyn weyn ku yeeshay social media maadaama uu Cumar ahaa qof caan ka ah baraha bulshada isla markaana shacbiyad iyo taageerayaal aad u fara badan oo lahaa. waana tan keentay in bartiisa Instagram-ka sawir uu soo dhigay kuna muujinayo in uu mehersaday Saabiriin Caarif Cabdullaahi ee la geliyeen wax ka yar 24 saac in dad ka badan 30,000 oo qof. haddaba maaha 30,000 oo qof inay been ciyaar ku imaadeen. waxa keenay waxay tahay waxa farxadda leh uu soo bandhigay iyo sidoo kale saameyntiisa shakhsiyadeed uu ku leeyahay baraha bulshada. Cumar maanta waa maalintiisii, waxaan leenahay saaxib, waxaan ku leenahay adiga iyo marwadaadaba Ilaahay idin kala siiyo awlaad baariya oo noqdo kuwii dalka iyo diintooda iyo idinka dhalay ee waalidiintaaba anfaca. waa hadduu Ilaahay yiraahdee hadda beertii ayaa la abuuray, miro dhalkiina waa sugi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. dad fara badan ayaa wax isleeyihiin ninkan hadda hadlaya ee muuqaalka ka daawanaysan muxuu waxaan oo dhan uga hadlaya oo sameynaya, ma inuu CK community muuqaal ku saara, ma inuu saan u sameeya waxyaabo fara badan oo qulubtiina ku soo dhacay ayaa jirta. haddaba waxaas oo dhan meesha ma yaalaan. farxadda uu qof walaalka qaadanaya maalin maalmaha ka mid ah isla markaana aad u yahay qofkaasi qof aad daawatid ama bulsho fara badan oo Soomaaliyeed ay daawadaan asagoo qofkaasi wax xumaan ah idinkala dhaxin oo shakhsi ahaaneed, haddana ay tahay maanta maalintiisii farxadda uu soo bandhigay wax aad dad fara badan ay u raadinayeen oo weydiin jireen oo warniyo ma guursadid 30 sano gaartay waa sii socotaa yaa qiimo waxa kugu dhacay waxyaabo saas oo kale ah, haddana soo bandhigay yiraahay maanta waa maalinteedii hambaliyada waa dhinaciina. waxaan u aamusnaa ayaa bas ka yarba. waxaan leenahay waxaan dhihi karno aan sameyn karnana waxay tahay inaan dhahno hambalyo oo u duceyno dhahno adiga marwadaada Ilaahay wax awlaad khayr qaba oo baari ah halin kala siiyo. intaas ayuuna hadalku ku egyahay, ujeedkan intaas oo ah. marka dadka is dhahaya waxaan ninkan hadlay waxaas oo rawaaysan oo sameynaya ruuxaas
wax muhiimad gaar ah iyo wax dan ah ay leedahay ee faa'iido ay leedahay ma laha. Marka walaal dad fara badan waa ogahay inay waxyaabahaas isku cuqdadeynayaan ama isgelinayaan ama waxyaalahaas isleeyihiin ninkan saan adigagan hadda muuqaalka daawanaya hadday maalinta xafladaada ay dhacayso aad ii soo dirto idhaahday maanta waa maalinteeda walaal waxaan ahay daawadayaashaada fadlan muuqaal ka soo samee wallahi billahi waan ka soo sameeyay waan soo gelinayaa sababtoo ah maalin farxadeed oo walaalka uu qaadanay aad la qaadato tiraahdo walaal hambalyo waxay ka dhabaysaa malaha adan sidoo kale maalinta adduunku farxad ay ku tahay oo maalintaas oo kala la mid ah ay ayadana dad fara badan oo dan aqoonin oo adigu ku yaqaano ay ku soo hambalin doonaan. Haddaba Sabriin Caarif Cabdullaahi iyo sidoo kale Cumar Kirish meherkooda wuxuu noqday 10,000 oo euro waa lacag adi dhowr 10,000 oo dollar ah mana mid aad u fara badan marka la fiiriyo xilliga la joogo iyo sidoo kale meesha la joogaba wax kasta waxa lagu cabiraa waaqicay markaas taagan yihiin. Soomaaliya hadda joogto 10,000 oo dollar lacag runaantii aad u fara badan laakiin Yurub marka la joogo oo hadan 2021 la marayo 10,000 oo dollar waxay ka tahay in ka goyso malaha gaari baa lagu gataa ama hotel baa lagu seexdaa. Haddaba waxaan leenahay ala kulli xaal hambalyo noqda kuwii awlaad khayr qaba kala hela oo isku waara idinkan waxaan rajeynayaa inaad u soo hambalin doontaan sidoo kale muuqaalkan la garin doontaan si uu bulsho fara badan oo Soomaaliyeed u gaaro kanaalkeena subscribe dhihi doontaan. Mahadsanid.